safarkaygan maanta ayaa waxa uu yahay mid aynu ku tagayno magaalo kale oo ku dhex taalla gudaha magaalada Muqdisho. daqiiqada kooban oo qaatay safarkaygu waxaanu soo gaadhnay magaaladani oo sida loo dhisay ay tahay mid casri ah, waxaana bulshada halkani ku nooli ay yihiin bulsho hesha dhammaanba adeegyada ay helaan bulshooyinka degan magaalooyinka kala duwan ee dalka. qaabka dhismaha ee degmadani ayaa mid gaar ah, waxaana ku yaalla boqolaal dhismo oo kala duwan, waana ta ka dhigaysa degmadani mid leh soo jiidasho gaar ah. ayuubhaan tani waxay ii muujisay in bulsho kasta ay qabsan karto wax weyn haddii meel wanaagsan laga bilaabo. xaafadaha kala duwan ee degmada Daar es Salaam saad wada arkaysaan gadaashayda ama xaggayga dambe waxaad ka arkaysaan boqolaal xaafadood oo si qurux badan loo nidaamiyey. halkan aan joognaana waa xaafadda Daar es Salaam oo runtii ah mid ka mid ah xaafadaha ugu quruxda badan ee magaalada Muqdisho. runtii markaad timaadada xaafadani waxaad dareemaysaa sida loo dhisay iyo qaabka loo dhisay inuu runtii yahay mid aad iyo aad u casri ah. dhanka caafimaadka degmadani ayaa leh isbitaal weyn oo qabta baahiyaha caafimaadka ee ay u baahan yihiin bulshada ku nool degmadani. saaxiibayaal halkanna waa isbitaalka degmada Daar es Salaam saad wada arkaysaan adeegyo fara badan ayaa isbitaalkani lagu fuliyaa sida adeegyada hooyada iyo dhallaanka oo halkan hooyooyin badan ayaa qalliino lagu sameeyaa iyo adeegyada dhalmada iyo sidoo kale cudurrada guud. xaafadani runtii adeegyo fara badan iyo waxyaabo badan oo cajiib ah ayay leedahay. waa markii ugu horreysay aan arko xaafad ku taalla magaalo oo iskeed iyada u leh waxyaabo iyo adeeg kasta iyo baahi kasta oo laga helayo xaafadaha kala duwan ama goobaha magaalooyinka. degmadani ayaa lagu magacaabaa Daar es Salaam, waxaana haatan aynu booqan doonaa beer si weyn loo dhisay oo ku taalla gudaha degmadani, taasi ay u dalxiis tagaan kumanaan ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho. kooxda iyo tiimka beertana waxay noo sheegeen in halkan ay soo booqdaan kumanaan kun oo qof oo isugu jira carruur iyo dumar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. goobtanina ay tahay goob lagu nasto. saad wada arkaysaan halkaa waxaa ku yaalla calaamad ah wadne ama jacayl ama loof, waxaana ay ka turjumaysaa in dadka halkan yimaada iyagoo faraxsana ay ka baxaan isla markaasina jawigooda goobtani ay runtii aad u beddesho. beertani waxa ay leedahay sidoo kale qaybo kala duwan sida qaybihii ay ku ciyaarayeen carruurtii madadaalada, xayawaanaadka iyo qaybo kale. waxaan jeclaan lahaa bal inaad ila socotaan qaybaha kale hadhayna aad ila eegtaan. gudaha beerta ayaa waxaa ku yaalla goob lagu talagalay dadka soo booqanaya, waxaana ku jira noocyada kala duwan ee xayawaanada duurjoogta ah sida boqorka kaynta. seen waxaan u heshiiyey inuu Daar es Salaam ka shaqeeyo oo beerta joogo oo nabad ay tahay og yahay. marka Daar es Salaam meel nabad ah codku waa faahfaahsan afar maasaga in dagaal laga rido meeshaan. waxa weeye waa jabisaan ag joognaa waa runtii mid aad u weyn weeye, laakiin saaxiibkay jacaylow ayaa isagoo gacanta ku haya oo la hadlaya. runtii baalku waa cajiib weeye. saaxiibbaytiin jacaylow maasha allah ma aniga mar kalan suubinaya war diyaar wey mar kale waa qaada maasha allah hay war saaxiibayaal oo aragtaan maanta waan ku jiraa jacaylo waxay ku caabeen insha allah maasha. halkanna waxay ka mid tahay asxaabta qaybtii waxaan joognaa beerta xayawaankan joognaa. runtii xayawaano fara badan baa halkan jooga oo maskan weyni uu ka mid yahay. libaaxii baa halkaa jooga oo isaguna waxaan ku udhi aan booqan doono goor dhow. saaxiibka jacaylo runtii dadku aad bay halkan ula yaabaan marka ay arkaan isagoo xayawaanadii oo dhan la hadlaya. jacaylo bal soo dhawow. asxaabtu runtii way yaaban tahay, maskii saaxiib baad la tahay, libaaxii saaxiib baad la tahay. saaxiibo ka warran Daar es Salaam joogo xayawaan ay kulli rabaayo hay wax ka soo falay kara wax kasta oo la isku hadlayn karo. soo boqol hay soo Daar es Salaam fadhiyo maasha allah aad u mahadsantahay walaalkay. maalinta dambena maska dambe si fiican aan u qaban doonaa insha allah haddii la ka dhigo. asxaabta runtii beertani Daar es Salaam waxyaabo badan oo aan ka helay oo cajiib ayaa jira. fardihii ama fardafuulkii ayaa lagu baranaya. fardihii baa halkan jooga, waa waxaan aad u jecelahay. dabaashii ayaa iyadana lagu bartaa oo aad iyo aad u jecelahay oo halkan laga helaya. Soomaalidu fardaha gaadiid bay u isticmaali jirtay boqolaal sano ka hor. aniga awowgay baa faras lahaa, anigu si faras ma lihi. waan yeelan doonaa insha allah. waxaan ku baran doonaa beerta Daar es Salaam insha allah. dadka soo booqanaya beerta Daar es Salaam ayaa ka warramaya xiisaha ay leedahay imaanshaha goobtani. waxaan ku jiraa macaamiisha oo beerta waxyaabo badan xayawaano badan oo haddii aad duurka isku qabatiin dhibaato isku arki jirteen, laakiin marka inta aad imaadid oo meel
laisku halayn karo aa ku soo dalxiisi karta arki kartid waxaa jiro xayawaano qaar hadda waxaa jira maskaan oo kale haddaba meel isku helno oo cadarna galmari leed marka maasha allah haddana waxaaba jooga nin oo rabaayada iyo oo maxaa la sheeg rabaayadeenayo maasha allah waxaa jiro xayawaano kale oo maxaa la sheeg libaax oo ka mid ah oo weliga aan arkin laakiin markaan beerta imaado dadka waxaa ku jira maska markay qabtaan soomaalida waxay dhahaan mas ninkii oo dusha loo saar jiniyaasha ka duula wargad saaga badan waxyaabo kale waxaa jira xayawaanaadka kale caadiga habta halkanina waa qaybtii dabaasha ayaan hadda soo gaadhnay oo ku taala degmada Daarasalaam gaar ahaan beerta Daarasalaam goobtani runtii waxa imaada ragga ayaa imaada dumarkuna waa imaadaan oo qaybta dhanka naga xigta waxay ku tusaysaa sida xaafadani ay uga duwan tahay qaybaha kale ee magaalada si weyn baa loo qurxiyay sidoo kale adeegyo badan oo aad ka heli lahayd magaaladana halkii waad ka helaysaa ka xoolan karnaa dadka halkan jooga uma baahnaba inay dib ugu noqdaan magaalada they have everything masha Allah sababta arkaysaan dhalinyaro fara badan baa hadda halkan ku dabaalanaysa goobtan si weyn baa loo qurxiyay waxaana ay ka mid tahay goobaha iyaduna dadka imaada beerta Daarasalaam ay waqtigooda ku qaataan marka laga imaado dhismayaasha degmadani oo ah kuwa casriya wali waxay indhahaagu qabanayaan dhismaha guryo cusub oo si xawliya u socda waxaana mustaqbalka dhow ay noqon kartaa degmadani magaalo casriya oo la tartanta magaalooyinka kale waxaana ay tani muujinaysaa isbeddelka horumarineed ee ka socda dalka ku xidhna waa iibshow lana socon muuqaal cusub